جنة ودار نوعية ودار إلهي بعد ساعة تبارك وتعالى dhagaxda laga dhisay buu nabigu sifeeyo wuxuu yiri labinatun min dhahabin wa labinatun min fidda labadan dhagax ee jannada la isdul dhigay laga dhisay midna dahab buu ka samaysan yahay buu nabigu yiri midna lacag buu ka samaysan yahay أهل الجنة جنة دحدة أبو نبي قولي ويعونيان ويعبيان وقت يعونيان حد مله وقت يعبيان حد مله ويعونيان ويعبيان مسحرونيان كذي يلن مايان قنوف يسين يخاخة منا يلن مايان بو نبي قولي عنتظر ما أنت أدوية وقم معنا هداد عنتو ساعة كدي بالقيد جيني ساعة بيت المي قد جيني أقل كأدوية وقوق روح بدن بلا بيت المي ما دعي كراين ونقضو ولبا أقل كسي روح بدن يهي عصري الله ديسو أيات تواليت كيسنا سي عصري الله ديسو إيمك عربتنا التواليت كو حيبا أتقانابا بيت الراحة أقل كالراحة دي ويقانابا تدعوني وين يكون دافتا عنا دا أدوية لكن جنة دحديد وعجيب عنتدى الجنة أبو نبي قولي ولا عني ولا عبي لا يتغوضون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يدفلون ما نبي قولي عنتدى الجنة ولا عنيا ولا عبي يا شراب كيغا ما هسا وحل عنيو بقلال سنو كما ياسنا العني دونا عندا العني أبو نبي قولي هاي سحرا نقوني ميسو كادن نقوني ميسو دوفي السين يقنبوفي خاختنا نقوني ميسو وهدا ما حي نقوني سا عندي waxay noqonaysaa buu nabigu yiri uu daacaya qofku daacada adduunka marka daacdo islaantaada dhan baa ku oranaysa war daacadaada qarmuunkeyga xagga noogala jeeso soo ma oran karto armaantii maxaad soo cuntay xabaa ka uraya xagga u ka ya allah daacada jannada buu nabigu yiri waa misk udgoon la ursado cadarka ugu udgoon ee jannada dhex yaala ayaa calooshiisa ka soo baxaysa qofka muuminka bihi ya sharaabku cabayay mee ila jannada waxa la sheegay wabiyaal dhan inay durdurayaan wabi caana wabi malaba wabi khamriya wabi biya intaaba hoostaada maraya markaasaad cabaysaa haddaad maanta cabtid markaaba baytalmeyga ayaad u baahan oo kaadi baa ku qabanaysa habeenkiina 2-3 jeer buu qofku kacayaa xilligu dhulku qabow yahay ahlal jannaha miya may kaadi yeelan maayaan buu rasuulku yidhi oo sharaabkii cabeen muxuu isku bedelayaa waxa uu noqonayaa buu nabigu dhidid buu noqonayaa dhidid cunadiina daacay noqotay udgoon sharaabkiina wuxuu noqonayaa dhidid buu noqonayaa dhididka adduunka waa qarmuuna waa la iska maydhaa dharka aad ku dhididayna waad iska bedeli laakiin jannada dhexdeeda dharkana la bedeli maayo wajigana la maydhi maayo ahlul jannati جرد مرد كحلا لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم بالنبي يقول أهل الجنة جرد مرد أهل الجنة قري يلن مايان تمت دغرنا يلن مايان حقا ولا ملكلا تمت بدنا يلن مايان قدنا يلن مايان بو نبي يقول كحلا عنده غنا واحد مودا عنده كحلين لو مرياد مودا بل ويبكو سميسن تهيبا لا يفنى شبابهم دل يرنمدودو مغبوده بو نبي يقول صدح يا صدون جر وفي رواية صدون جر بالغو جوجينيا اما صدح يا صدون جر انت كيران مايان كان من دافيان لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم دركي حدانا مبالي ابو رسولك جنة دحدة السوق باكو يلا سوق الجمعة ليدا سوق بهل الجنة اسكو ايمان يا ابو رسولك يدي فتهب عليهم ريح من قبل من الشمال ضبيل أي حاجة كذا إيمان دون تدين عبدح ضبيل شاسا وجهه كل فنيسا سورة دودي بيبدل يساب ونبي يقولي كلر كدر كانوا بيبدل يسا أيكو كلر كي حافظة كجت سجين دركوجو كلر كي ماها وجهه كلر كي ماها أيكو سو نقول يا دمر كوجي حورا دودي حور العين تبا أوران دونتا ورمركان سوق النوقب بحدين النقص النقطين دركيني وايس بدلي كلر كيني وايس سو بدلي واين السيده markaaba yakuna oranayaan wallahi annakana intaan niga maqnayn wala nasiib beddelay inkana suuqa adduunyada markaan tagno maxaan kala soo noqonaa qurux misafal xumo
boos baad kala soo noqon iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaallana qurux baad la soo noqon qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir iyo badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi samaa wa 30 mitir baa lagu qiyaasaa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baahanaysid baytalmay geli maysid ma seexanaysid daraariya habeen waad iska ciyaariyo tuman insha allah dhahada qulu insha allah haweenka jannada nabigeena ka sheekeeyay calayhi salaatu wassalaam nisaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyay buu rasuulku yidhi mid ka mida iyaka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey mid ka mida buu nabigu yidhi haddii adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nabigu yidhi ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku yidhi gabadha muuminadda ee jannada galaysa muuminka jannada loogu diyaariyey hadday adduunyada u soo bixi lahayd oy dhoolla caddayn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cadcadda iftiinkayga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xawralcaynta ka mida faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nool oo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaayeen buu rasuulku yidhi marada yare madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi muuminku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xawralcaynta dhuunteedu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeegu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annaku waxaa nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annaku waxaa nahay kuwii weligood jannada ku waaryaayay ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wa naxnu naacimaatu falaa nab'as annaku waxaa nahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn tuuba liman kaana lanaa wa kunnaa lahu ka noo ahaada nin een annakuna xaas u noqonnaa liibaane bay leeyihiin ibnu cabbaas allah raalli ka noqday isaga iyo aabihiibe muuminka banka qiyaame kitaabkiisa gacanta midig marka laga siiyo waatan aayadda qur-aanka ilaahay ku sheegay wa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura ehelkaagu kuwan adduunka aad ku haysata maaha ehelkan adduunyada aad ku haysato ibtilaa baa laguu siiyey ikhtibaar waa lagugu eegayaa inay ilaahay taacaddiisa ku seejiyaan iyo inaad taacadda ilaahay aad ku fulisid baa lagugu eegayaa laakiin ehelkaaga runtu waxa weeyaan waa ka maalinka qiyaamaha muuminka gacanta midig kitaabka marka laga siiyo ee xisaab yaroo fudud la xisaabiyo markaabuu u gadoomayaa baa ilaahay yidhi ehelkiisii oo sugaya ayuu xaggooga u noqonayaa buu ilaahay yidhi albaabka jannaday joogaanay ku sugayaan baa la yidhi albaabkay ku sugayaan kitaabkiisii buu gacanta midig ka qaatay xisaab fudud baa la fudaydiyey xisaab fudud waa maxay lama baadhbaadhin buuggiisii lama baadhba haddii la baadhbaadho waa khatar ilaahay baa asturay oo naxariistiisii buu hubiyey addoon baa lala soo keliyoobi doonaa banka qiyaama buu nebigu yidhi oo la odhan doonaa adiga rabbi baa kuu yeedhaye soo kac markaasaa ilaahay caza wajalla sitrigiisaa ilaahay huwini doonaa markaasuu ilaahay addoonka uu la hadlayaa hadalka addoonkiiyo rabbigiisa dhex maraya makhluuqu maqli maayaan malaa'igtu maqli maayaan muqarrabiintu maqli maayaan waa laga qarinayaa waxa uu ilaahay qirsiin doonaa dunuubtii adduunka dusheeda addoonkan uu ku qarsanayay baa ilaahay u sheegi doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkaygiyo dembigii caynkaas iyo caynkaa ahaa ee maalin heblaayo halkaa aad ku samayseen ma xasuusan tahay markaasuu leeyahay haa markaa buu ilaahay odhan doonaa adduunka dusheedana waan ku asturay
ما أنت نواكود بدافي كتاب كيسا قعنت مدي لقى سينا يا لأنه حقا يا جنة وأرض يا مركز الله ينقدك أخواس مهدان دم بالله مو نقجرا مي معصومين منهن دم بيونقد عيا لكن نحريست إلهي ببالارن إلهي نحريست إسار رجيننا مر والبكقوسا مينو دad kana ka quudin mayna naxariista ilaahay dadkana ha ka quusin mayno muuminka marka kitaabka la siiyo ehelkiisii buu ku noqonayaa ibn Abbas radiyallahu anhuma ayaa yiri mid kasta oo kitaabka gacanta midig laga siiyay xawraadiisii baa irida u taagan oo sugaysa markaa buu daymoonaya daymashada oo kaliya ayaa qaadanaysa leeyahay 7 sanadood بس سنة عروسك هبينك أوه الرئيسي حاسك قال وسو هويو لا بتنضد الغسام هو يكرتها أربع حنا جاي جب كورين ده فراك هاجلي حنا يا يعني ما بهالليل يسد بدونك دوش هذا لا بتنضد دقيقة قروح أنت اللي أقول لا أقدرك بدونك جوجا إلهي ما بسيم بقى فمحاضر ملاين قبل 7 سنة عداونا يسد قروح ذي جمال كيجا ابن عباس وحولي لكن أيات داون دون ما تقانا وكأدونك انتو جوجو محارمت عنده سكلابتا كاسا حور العين تداوش ذي كل راح يسندونه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والدايمون ساسو والدايمون مؤمنكم 7 سنوات تعانقه ويعانقها وكبودي مركع ينو يكسو بودي معانقه وقورنتا معانقه كليه ابن عباس هدنا 7 سنه كله هدنا هيسن بودي صدا ونو هيسن markuu jannadii arka naciimteedii afar shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadanka nolosha ku qaraareeynayay ayaa ahlal jannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa afartee waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bogtaantii afartaaba maskaxdooda ku soo dhici doonta naciimka intan leeg ayaa ilaahayna siiyay markaas afarta xasuusanayaan baa la yiri xaga sara laga dhawaaqiyo la oran doona ya ahlal janna إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا يا أهل الجنة ما أنت لقى بلابا جنة واحد كل حليدهين نلل دائمة لما شدا بأرك ميسان نعمة جوكتا لو نقصان دم بأنا اللهين دل يرنمو قبو دم بأنا اللهين عافي ما قب حنون دم بأنا اللهين الله ينسيه